kusoo dhawaada barnaamijkii milicsiga siyaasiga oo idinka imanaya stuudiyaha telefishanka Universal ee magaalada Hargeysa. barnaamijka toddobaadkanna waxaa sharaf noo ah inay marti noogu tahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland Ilhaan Maxamed Jaamac. bulsho kastoo caalamka waxaa muhiimad weyn u leh waxtarka dhalinyaradooda. waxaana lagu qiyaasaa in bulshada Somaliland boqolkiiba 65 in ku dhawey ay yihiin dad da'doodu ay ka yartay 30 jir. waxaa sidoo kale la qiyaasaa in boqolkiiba tiro aad u badan dhalinyaradaasi ay shaqo laayeen. haddaba barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wasiiradda inooga warantaa xaaladda shaqo la'aanta amaba inta shaqaysa dhalinyarada ee Somaliland iyo dhinaca arrimaha bulshadu sida ay yihiin. wasiir ku soo dhawow telefishanka Universal. mahadsan tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. kulay waxaan ka warbixin doonaa shaqada wasaaradda. wasaaraddu waa laba wasaaradood oo wasaaradda ay isugu keenay. waa arrimaha bulshada oo ayba iyo laborki. marka haddaan laborka waxaanu leenahay ilaa 5 qaybood 6 qaybood baan laborka uu ka kooban yahay. waxyaabahan hadda wasaaradda intii aan nimid bilownay waxa weeyaan inaan horto qaabayno qaabkii ay wasaaraddu u dhisnay. waxaanu abuuray inaanu samayno sections oo qayb waliba wax waliba ay shaqo gaar ah hayso. waxa hadda wax ka sheego waxa kamid ah waaxdii health and safety. waxa jirta tii ahayd shaqaalaha iyo ilaalintii xuquuqda shaqaalaha iyo loo shaqeeyaa. oo hadii jeer section baa jira labor dispute oo wasaaradda dhexdeeda daan ugu garnaqno markay isqabsadaan loo shaqeeyaa iyo shaqaalo. waxa jirta wax iyaduna inspectors oo wareega oo iyagu laba arrimoodba way wareegayaan. waa laba qaybood bay u qaybsan yihiin. qayb waxa weeyaan waxay ku wareegaan hay'adaha maadaama aanu ilaalinayno oo eegayno in shaqada wadanka ka jirta fursadihii si ay ugu sinaadaan oo ay fursad u helaan dadka reer Somaliland maaragtay ganacsatada iyo wax in badan dad badan oo aan Somalilanders ahayn ay u shaqeeyaan iyo hay'adaha. marka waxaan bilownay iyaduna in inspectors wareega oo eegaya dadkan shaqeynaya inay horta yihiin dad wasaaradda soo maray oo wasaaraddu u ogolaatay inay ka shaqeeyaan. qayb kalena hadda iyaguna shaqada bilaabayaan oo waa qaybtaan ugu talagalay inay ilaaliyaan in safety-ga goobaha shaqo oo iyaguna waxay tagi doonaan warshadaha iyo meelaha maaragtay construction companies-ka iyo dadkan shaqeynaya horta safe ma yihiin inay shaqadan qabtaan. qaybtan socialku iyaduna sidoo kale waxaan leenahay waaxda genderka oo lamaana ah. waxaan leenahay waaxda caruurta. waxaan leenahay waaxda family oo iyaduna oo family hadana oo si khaas ah counseling baa jira oo ugu talagalay dadka maaragtay dhibaataysan ama xanuunsanaya ama isay u helaan counseling ama had iyo jeer dumarka kan ay ku dhacdo dhibaatada loo geysto ama tacadid loo geysto si kastaba ha ugu timaadee. waxaanu iyana leenahay waaxdii disable oo dadka naafada iyadana loogu talagalay. dan horta saasay wasaaraddu u ballaadhantay. laakiin haddaad su-aashaadii ahayd shaqalaanta wadanka aan ku soo noqdo de sida waxaynu ka warhaynaa annagu waxaanuba filaynay shaqalaantu inay tahay ilaa 70% wadanka ka jirta. laakiin surveygii ay sameeyeen wasaaradda qorsheyntu 57% oo boqolkiiba 7 ha bay yiraahdeen survey ay iyagu sameeyeen. annagu iminkaan ku jirnaa inaanu sameeyno hadii alla yiraahdo laakiin aragtidaada ma kula tahay tiradaasi inay waaqiciga ku salaysan. anigu waxa ila tahay inaan kullay inay ka badan tahay inay inta ka badan shaqalaantu inay ka badan tahay. way marka youthskeena ku eegto youthskeena de boqolkiiba 50 kama shaqeeya. waxaan isleeyahay hadday ugu badato boqolkiiba 30 baa shaqo taga. de waana force-kii waana ugu badnaa. marka shaqalaantu runtii waa dee saameyn weyn bay ku leedahay. caruurteena dee imika waxay soo baxayaan iyagiyo dee jaamacada soo bixiyay oo tiro badan sanadba sanadka ka dambeeya way soo badanayaan. markaad eegto dadkeeni shaqada ugu badan ee la haystay aynu ku nooleynaa dee waxay runtii miyigana haddaad aragto imika dadkii way kasoo xaroonayaan xoolihiina dadkii oday iyo islaam baad ugu tegaysaa meeshii yareeda xoolo joogeen. marka culayskii dee wuxuu kusoo badanayaa uun shaqalaanta. inkastoo waxbarashada wasaaraddaada aanay hoos imanin haddana
tirakoob ma ka haysataan inta dhalinyaro ee sanadkii jaamacadahooda kale ka soo baxdee soo gasha suuqa shaqada tira rasmi aan hadda kuu sheego ma hayno estimate baanu haynaa gobolku sanadkii dhaweyd waxaan ku islahayn baa soo baxay gobolladoo dhan ee eegto Somaliland oo dhan ilaa 4,000 baan estimate ahaan anagu samaynay inkasta anaan dee daatadii soo wada ururin laakiin for year dee Hargeysa kale oo ku dhaawaa jaamacada ku yaala ilaa 2,000 ka soo gartay inta barnaamijkani uu socdo waxay nagala qayb qaadan doonaa iyaguna dabcan su'aalo ku weydiin doona dad ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada laakiin su'aal kale haddaan ku weydiiyo tii shaqada iyo shaqalaanta waxbaad ka taabatay arrimaha bulshada marka la leeyahay inkastoo qaybihii wasaaraddu ka koobnayd aad sheegtay dhibaatada ugu weyn ee bulshada maanta Somaliland hortaala maxaad ku tilmaami lahayd horta labadii way soo galayaan bulshada ugu weyneed ee jirta waxa weeyaan waa poverty saboolnimadii oo ay daabuurayso shaqo la'aanta ayaa imika ugu weyn dhibaatooyin badan waxay ka jiraan poverty-gaasu inuu keenay inaynu caruurteeni dayacanto caruurteeni imika maalin dhaweeda waxaan bilownoon xareyna caruur imika ilaa 80 caruur oo street children oo Hargeysa qura ka xareynay waxaanu dareensanahay caruurtaas in ilaa 400 ay ku jiraan suuqa Hargeysa oo qura dadkaas ma wadaha caruur orphanage oo bilaa waalida waa caruur dadkooda dad sabool yihiin imika daatada waxaan sameeyay form baan ilmaha ka qoraa markaan u qabaneen meesha ku xareynay waxay tusaysaa inay waalidkoodii wuu nool yahay laakiin waanay hanan kareen in caruurtoodii inay hayaan marka runtii bafartigu wuxuu noqday wax maaragtay saameyn weyn ku yeeshay bulshadii wasiir sida aad ka warhayso markii la aasaasiyay jaamacada ama kulliyadahan waxbarashada sare ee Somaliland fikradihii ka dambeeyay waxa qayb ka ahayd in la helo meel ardaydii markay secondary-ga ka baxaan ay tagaan oo si aanay shaqo la'aan iyo suuqii isugu soo baxsaneen maadaama tirooyinka inta leeg maanta jaamacadii ka soo baxaya oo waxbarashadii sare sidaa loogu batay shaqooyinkiina aanay jirin ma kula tahay in loo baahan yahay fikir kale in lala yimaado ka hore la mid ah way la tahay anigu waxaan qabaa runtii inaynu bedelo inaynu caruurtiina dhahno jaamacada la tago in dadkii xirfada aynu barnaamijno u baahan way wax weeyaan de 5,000 10,000 oo arday oo account soo bartay waa inaan meel ay ka shaqeeyaan hayno inaan fici maayaan laakiin waa in dadkii la baraa skills ay wax ku bartaan anigu waxaan aad u danaynayaa runtii xoog culays badan saaray sidii loo heli lahaa inaynu instituteski farsamada gacanta helo ama de haday noqdaan de iyago 3 years ama de kuwa short course aad baan u danaynaya way ma runtii dadkeena employable maaha waxaan ay soo barteen wax wadankeeni iminka waxaad aynu joognaa anfacay waxaan dhawaan tagay oo aan last year July tagay Malaysia waxaan la kulmay dad badan oo ama ganacsatada ama de dawladda kamida intii aan joogay waxaan la kulmay mayorkii ugu dheeraa waqtigii oo ahaa 12 sano ku Alambur joogay oo 1982 ilaa iyo 90 joogay ayaan la kulmay way markaan uga sheekay wadankeena maxaan idin la qabanaa dadna waxaan ku idhaahdaa inta tago 10,000 jaamacad nooga soo baxay baa jooga kaasoo yiri maxaad u diranaysaa kuwa kaasana de shaqaale la raadinayna wadankayaga investors yimaadaan oo de shaqana loo abuuro company yimaadaan bar rabaa soo ma hata marka talada isii waxa weeye waxa uma baahnid wasiiro waxaad u baahan tihiin dadkiina skills ina bartaa annagu waxaan halkaa ku soo gaadhnay oo aan maanta Malaysia halkaa ku gaadhay waxa weeyaan dadkayaga qof kasta oo reer Malaysia ah farsamo gacmeed buu bartaa horta markaas uu qofkii doonaya dabadna jaamacad waxaan la kulmay nin kale oo isna ganacsato weyn oo isna maalin qadar la ii sameeyay oo ay de culayska shaqo la'aanta baan mar walba dadka la kulmay wuxuu ugu yidhi wasiir waxaad yeeshaa waxaan oo accountant aad ka hadlaysa leedahay intaas oo accountant aan soo saarnay arday willing inay jeebka dambe geliyaan shahaadadoodan accountant-ka ama de ay la soo baxeen diyaar ma u yihiin inay carpenter noqdaan oo diyaar ma u yihiin inay guriga ka shaqeeyaan oo diyaar ma u yihiin inay darawal noqdaan oo de dunida kale la geeyo waayo wuxuu yidhi wadanka Philippines oo kale wuxuu halkaa ku gaaray
ya dadkiisa dibadda u dira dibadda ka soo shaqeeya shaqo kasta iyagoo master dee guri ka shaqeeyaan oo dee u yihiin jaareedo marka wuxuu concept-kan dee baa u baahan tihiin isla su-aasha haddaan ku weydiiyo diyaar ma u yihiin bay kula tahay kuwa fursadaha helaya inay saas kala yeelaan anigu horta dee talooyinba meeshii aan fursaddii aan helo ee aan dhalinyarada kula hadlaba waan idhaahdaa waxaynu u baahannahay inaynu dee shahaadadan xareyno oo halkan waddankan ayay dee fursada yaalla waayo waxaan garanayaa maalin dhaweed waxa ay timid gabadh UNFP ka timid oo berbere tagtay oo way kasoo noqoto markaas ay igu tiri waa waddan qaniya bay igu tiri markaasaan yaabo tol maxay aragtay ka waran gabadhaas dee resource-ka waddankeenu leeyahay xoolaheena may arag berbere hargeysa qulay socotay ina macdantahay ama lagu sheego waddankeena hoostiisa may arkin beeraheena may arkin waxay aragtay dacarta yar ee halka ku taala ay ku leedahay olivera baa uu ka buuxa waddankiina ma dadkaan leedahay way shaqalaayeen may ka shaqeeyaan dacarta tan oo una dee suuq galaan marka runtii halkanaaba available tahay shaqo badan laakiin waxay u baahan yihiin in focuskii dhalinyarta la bedelo oo loo bedelo inay horta self waxa ugu horeeya ay qaban karayaan say iyagu shaqo u abuuran lahaayeen waa inay bartaan say shaqo u abuuran dabcan su-aalaha ay ku weydiin doonaan dadka barnaamijka inagala qayb gelaya ayaa soo socda laakiin haddii su-aal kale aan ku weydiiyo ma jirtaa wasaaraddaadu ma leedahay siyaasad tusaale ahaan ay iska kaashanayaan dawladda oo wasaaraddaadu ay wakiil uga tahay howlahan iyo waaxda gaarka ee ganacsatada gaarka ganacsiyada gaarka loo leeyahay horta waxaanu leenahay siyaasad ma lihina dee sharci baan leenahay laakiin waa wax u baahan inaanu imika abuurno qaab ganacsatadii iyo anagu aanu u wada shaqeyno oo ganacsatadii si ay maskaxdooda ugu furto dee waxanay soo dejinayaan una dee waddanka qaar baa wax laga soo saari karaaye in iyaga laftigooda haddii dee dhinaca shaqooyinka oo kale waxa weeyaan laborkeenu uun intuu ku taalla unba anaga ganacsatada iminka relationkeegu yahay oo ah in shaqadii dee ay fursadihii loo sinaado oo aan ku dee ay labor logan ay noqdaan dad ku shaqeeya oo shaqadii ay xayeysiiyaan sidaanu de hay-adaha iyo maaragtay hay-adaha dawliga aba dee ugu khasabnay inay shaqooyinka xayeysiiyaan wasaaraddiina si fursaddii ay u noqoto fursad loo siman yahay in wasaaraddiina ay observer u dirto si ay u eegto in wixii dee aan maaragtay garabaysiya waxba jirin soo far intaan uun dee hadda isla taagn joognaa halkaa weeyaan laakiin wasiir markaad leedahay in shaqadii loo sinaado waxaa laga yaabaa in dad fara badan ay isweydiiyaan markaad gasho dhammaanba hay-adaha ka shaqeeya somalilan ee ajanabiga ah shaqaalaha u shaqeeyaa wax aada iyo aada ugu badan dadka shisheeyaha oo dhalinyarada qaarkood ay dareensan yihiin in shaqooyinkii iyagu ay qaban karayeen dad kaloo ajanabiga ay qabanayaan taa wax siyaasada ma ka leedahay ha culays badan baanu ka sameynay anagu waqtigii intaanaan anigu wasiirka noqon dadku xitaa warbarmad may qaadan jirin annagu hadda culays badan baanu sameynay qof kasta oo shaqo waddankan u imanaya waa in wasaaraddu form baa yaalla wasaaradda la buuxinayo dabeedna shaqadu labor lowgeenu wuxuu qorayaa shaqo qof somalilander qaban karayo inaan qof ajaanabi qabanin marka shaqooyinka iminka waxaan culays badan baan runtii saaray haddaad u fiirsato sanadkii hore iyo sanadkan dadka ajaanibkii joogaa isku mid maaha waayo xoog baanu u joojinay iminka waxaa shaqooyinka somalilander isku hayaan ee loo ogolaaday ilaa iyo project manager project officer ilaa xadkaasay gaadheen in somalilander isku iminka hayaan oo aan jiri jirin ma ogolaano inaanu shaqo maaragtay laakiin de hay-adihii intooda badan consultant baa uu imanayo la joogaa in dad maaragtay hay-addii hadday doonaan mas-uulka abaa jooga laakiin numberka markaad eegto aad baanu culays badan u saaray midda kale iminka waxaanu haddana noo waayo waxaanu ogaanay in dad badan hay-adaha way ku yar yihiin laakiin ganacsatada ay xoog ugu badan yihiin iminka inay dad ajaanib iyagana la joogaan oo aan naba soo marin annaga ganacsatadu nababa soo maraan oo wasaaradda kama qaataan foomka hadda airboodadaanu samaynaynaa inaanu dhigno cid bixidda markay dadku baxayaan fiisahooda eegtaa kuwaas waa shaqooyinkii sare shaqooyinka hoose markay timaado guryaha la ilaaliyo iyo makhaayadaha laga shaqeeyo iyo dad wadamada deriskaa ka yimi ayaa aada iyo aada ugu badan ma dadkii reer somaliland baan markaa shaqooyinkaa diyaar u ahayn inay qabtaan mise waxaa jira waxyaabo kaloo iska hortaagaya cabdisalaano culayskaas horta bulshadu nagaga yimid
xoog oo dawladda aad baa loo soo saaray culayskaas leeyahay shaqadii iyadii waxaa haystaa in oromo ama dad wadamadan jaarkaa ka yimid dabadeedna dawladdu waatay soo saartay oo tidhi wixii aan sharci haysan waddanka ha ka baxaa way wada baxeen haddana dhibaatada soo baxday waxay noqotay inaan dadkeeni ogolayn shaqooyinkay dadkaasu hayaanba inay qabtaan anigu dee dhowr bilood baan bilaawaardi ah xashiishkii guriga yaalay waxa la qaadi waaye 2 bilood baa layga qaadi waaye dee la ninkii waniga dheeriyay guriga joogay iyo xashiishka maaragtay dawladda hoose shirkadaha kan waxa uu shaqeeyaa dad Oromaa waa xashiishka qaada in xashiishkii la qaadi waaye maalintii dambe waxay kaliftay in loo ogolaado dawladda hoose inay keensato cid dee baabuurtii raacdo xashiishkii guriga ka soo qaada shaqooyinka aan anigu isleeyahay difference bay sameeyeen qura waxa weeyaan shaqooyinkii kuuliga ahaa oo kuuliga haddii Oromo ka shaqeynaysay dadkeeni way heleen iyo baalashlayaasha iyagana waa notice gareeyay caruur Soomaaliyeed baa inta badan imika joogta laakiin hadday ahayd waardiye iyo hadday ahayd shaqadii guryaha ay hablaha maydka ka shaqeynayeen intiiba dad looma hayo dadkeeni ma ogola arrinta ugu dambeysay wasiiraddu ay ka hadlaysay iyo arrimihii ka horreeyayba yaa wax su'aal ka qaba ninka sabka ugu horreeya fadhiya bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacaygu waxa weeye xamse ibraahim cabdullaahi xamse xaaji dool waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Hargeysa economiga ahna gudoomiyaha ururka horumarinta fikirka xorta ah wasiiran waxaan ku weydiin lahaa 3 su'aalood mid waxa weeye iska koman labana waa su'aalo mid waxa weeye marka hore mid waan kugu raacsanahay in dhalinyarada reer Somaliland aqoontu doonaha lahaadee in kibir ama santaa ku jiro oo shaqadii uu qaban lahaa uu ku maxay ahaday ka doorbiday mid ka weyn oo kursiya mid kalena Cabsalaan baa ku weydiiyo ah tan hay'adaha maxay ahaday ay haystaan dad ajaanibi taana waan ugu faraxsanay mar hadda tiri taana waan ka dadaalna laban ku weydiin lahaa tan ku weydiinay wax weeye wasaaradda ciyaaraha waxa dhacday in inan kamid oo shaqaalaha kamid ahayd in la eriyay inantaasi wax weeye dumar ama qoladii ololeynaysay xisbiga kulmiye ayaa daba gashay oo la ogaaday inay ku hayeen tacaddi inay kamid ahayd xisbigii hore ee talada hayay wasiirkuna aad buu uga dooday taa maxaad shaqaale ahaan u soo dhicin weydeen maxay ahayd waxay gar u lahayd su'aashaas talabaadna waxa weeye wasaaraddiinu badanka waxay gender balance ay ka hadashaa badanka oo xagga dumarka ah marka ablihii markaad tacliintii bartaan oo inamadii laga hormarsiyo meelo badan la yiraahdo wax walba la soo saaray ama 2 shaqo ama 3 shaqo haday ahayd xagga tirta loo galaa in kooto lagu xiro dad kamid ah oo la yiraahdo dumarkii marka hore bal inay tirasmi sii qaataan oo iyagu gooni ugu tartabaan taana maxaa check balance-ga gender balance-ga aad ka oran lahayd waa tay intaynaan u gudbin wasiiradda iyo jawaabta ay su'aalaha ka bixinayso ninka safka labaad fadhiya magacayga waxaa dhahdaa Mustafa Maxamed Daahir waxaan ahay kamid ahay shaqaalaha hay'adaha u shaqeeya sidoo kale waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Admaas kulliyadda ama faculty-ga la development studies wasiirka Ilhaan waan salaamaya iyo Cabsalaan Harriba waxaan rabay inaan si xoojiyo 2 qodob ah qodobka koobaad oo ah in dhalinyarta Somaliland ama guud ahaan dadka Somaliland aanay diyaar u ahayn inay qabtaan shaqooyinka hoos oo dhan marka taas micnaheedu waxa weeyaan waxaan sidoo kale ka soo horjeedaa qodobka odhanaya unemployment-ka Somaliland ama shaqo la'aanta Somaliland uu sareeyo waxa jira boqolaal shaqooyin laakiin aynu ka hanweynahay waxaan xasuustaa maalin hotel aan fadhinay restaurant suuqa ku yaala ayaa in badan nagoo fadhina ayaa markaan saawgan leen fadhiisanay xoogaa nagoo fadhina buu cidba noo iman weyday ilaa 10 daqiiqo nagoo fadhina intaan kacnay baan ninkii hotelka iska lahaa u tagnay markaasaan ku nidhi intaasoo dhan baan fadhinaa ilaa 10 daqiiqo weli cid waiterkii ama mudalabkii weli nooma imanne maad la hadashidoo tiraahid shaqayso marka halkaas iska fadhiyaan iyagu nooma iman markaasuu yidhi adeer dhegeysta mudalabkan aad leedihiin la hadlo oo shaqaysa ku dheh haddaan 2 erayo adag ku idhaahdo halkaasuu ka baxaya $50 anigu bishii aan siiyana shaxaad buu ku helayaa suuqa markuu baxo oo markaan dhinaca kale ka eegna $50 bishii
qof dhalinyaro maalintii $2 ama $1 suuqa ka waaya ama $1 badh oo marka bishii la isku wadageeyay $50 noqonaysa ma jiro mid kale freedom noo helaya marka shaqooyinka sare hadan ka hadla ama hay'adihii waxaasan haday jeeran ku dhalan inay ajaanibi maadaan halkii uu ka shaqeyn lahaa qof gudaha joogo oo jaamacadaha gudaha ka baxayo Soomaali ama Somalilander taalafteeda waxaan leeyahay quality-ga waxbarasho ee iskuuladena iyo jaamacadaheena ayaa runtii aan ahayn halkan inuu ka filayno magaca way wadaagaan oo secondary ama jaamacad way wada yihiin laakiin haddana quality markay noqoto waxaan isleeyahay ninka jaamacad Somaliland ka baxay waxa ka tahay wanaagsan in secondary Kenya ama Uganda ama wadamada jaarka ka baxay taas waa dood kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay yaa kale su'aal haya ninka geeska fadhiya safka labaad aad baad mahadsantiin Universal iyo wasiirka iyo marti sharafta kale halkan fadhida hal comment iyo laba su'aalo iyo hal su'aal baan ku weydiin lahaa inta badan waxa lagu soo celceliyaa magacayga horta sorry waxa weeye Mubarak Cabdiraxmaan waxaan dhigtaa jaamacadda Armas qaybta Development Studies-ka waxaan kaloon ka shaqeeyaa dhalinyarada Soomaaliya waxaan ku weydiin lahaa wasiir inta badan waxa lagu soo celceliyaa shaqo la'aanta qof walba oo kamidina Somaliland wuxuu ka hadlaa ama dhalinyartu waxay ka hadashaa inta badan shaqo la'aanta waxa weeye iskuuladii ardadii way ka soo baxeen waxa weeye jaamacadda bay dhameeyeen waxa weeye shaqo la'aan baa haysa waxa weeye wasaaraddu way ku mahadsan tahay waqtigan dambe sanad iyo badh ayaan malaynayaa inay dawladda cusub jirto hawl badan bay qabteen laakiin qaabkay u qabanayaan in la sii xoojiyo ayaa fiican kaba soo qaad laborka qaybta departmentka waxaan arkay in dad waaweyn ka shaqeeyaan oo aan hawshii u firfircoonayn misleedahay wasiir dad dhalinyaro oo firfircoon oo hay'adaha iyo khiyaamadooda inta badan wax laga yaabaa wasaaraddu inay meel taagan tahay laakiin wax laga yaabaa mar walba heerka taagan tahay inuu ninka Kenyaatiga ama ninka cadaanka kula ciyaarayo wax laga yaabaa project officer in loo diiday maanta laakiin consultant ayuu wadanka ku soo galaya 2 sano ama 3 sano ayuu dib u sii qaadanaya marba fiisaha loo cusboonaysiinaya ka bacdina shaqo IDs-ka ama FGM-ka oo qaban lahaa nin wadaniya ayaa laga yaabaa inuu galo iyo khiyaamada inta badan kuwa kacaan fahmi karana language-ga iyo qaabka aad iyo aad baad mahadsan tahay haddii wasiir aynu ku horeyno su-aasha ninka safka hore fadhiya ku weydiiyey oo ahayd arrinta inantaa ku saabsan horta inantu waa saan ka warhayo waa shaqaale dawladeed shaqaale dawladuna aniga ka wasaarad ahaan way ga madax banaayeen laakiin hadday dacwadda way hay'adda shaqaalaha iyaga de ka mas'uula shaqaale dawladeed inantana anigu saan warka ku hayay shaqada lagama eriyeen wala shaqo kale oo promotion kala la siinayay intii unba mala la diiday laakiin hadday de hay'adda shaqaalaha dacwadda aniga hadaanay iman oo soo gudbin hay shaqaalaha dawladdu waxa weeyaan wasaaradda way ka madax banaayihiin dacwadeedina waxa ka lahaaba iman horta taasaan kaga hadlayaa tii kale waxay ahayd isu dheelitirka ragga iyo haweenka oo uu leeyahay waxa ku dulman sidoo hadalka u dhigay ragga shaqa koota ah oo aan ka warhaynaa ma jirto lama wanu equality-ga baan anagu ka hadalnaa in dadkii u sinaadaan shaqadii laakiin marnaba meel sharcigeena kagama taalo meel dumarkii inay koota wax ugu xidhay koota meel baan dumarka wax uga doonaynaayo waa golayaasha inay siyaasadii uga mid noqon lahaayeen in koota la siiyo laakiin shaqada inantu waa inay la tartantaa inanka iyada wax koota u xidhan ma jirto su-aasha labaad taas haddaan horta wasaaradda waa laba qaybood mid waxa weeyaan dadka observerska ee tagaya ee fadhiista interviewga midna waxa weeyaan inaanu eegno qofka kan shaqadan uu soo doonanayo runtii nin inaan lawyer oo low iskuulka Hargeysa ka baxay agaasimaha iyaguba waa lawyer isaguna qaybta labadooda runtii gacanta ku haya oo eega markasta oo qof shaqo loo soo doonto oo shaqo uu doonayo qof la keenayo laakiin hadday adigu dareen kaaga yara jiro dadka noo taga ee observe gareeya marka interviewgu laga qaadayo annagaba dareen waanu inaanu halkaa runtii kordhino way nagu jirtaa laakiin dhibaatadu waxay ka dhacday
shaqaalena looma ogolayn cusub inaanu qaadano sanadkii dhaweyd bal sanadkan aanu iminka weli haddana sugaynaa inaanu saan u kordhin lahayn waayo runtii annaba waanu ognahay halkaa qaybtaa la ilaalinayo runtii waxaa review gareeya application kasta oo work permit lagu soo doonto agaasimaha iyo cabdiqaadir oo isna ah waaxda agaasima waaxeedka labadooduba waa loo yaro iyaga xoog runtii arrintaa gacanta ugu haya halkaa warwar badan kama qabo anigu observerska haddaad dee kolleyba dee marka interviewada dadku tagaa hadday dadku yidhahdaan meelaha qaarkood waa la sheegay inaan la yidhaahdo qofkii dee malaa wasaaradda ka socday ma ahaynba qof active ahoo ama dee involve ah marka interviewgii soconaayo taas markaa wasiir ma waxaad qiraysaa arrintii uu ka hadlayuu lahaa dadka wasaaradda ka shaqeeyay qaar fara badan baa dad da ah oo hawshiiba aanu firfircoonay way dee runtii dad da ah way joogaan wasaaradda annaguna waan rotayd garaynaa maadaama us qofkii waqti lagu rotayd gareeyana mu gaadhin mana eryi karno oo dee sharcigi baan noo ogolayn marka waxaa sameynaa inaanu waanu had iyo jeer waxaan annaga laftigayagu isdaynaa inaanu dee aanay ku keliyeysan dadkaa da-dihiina shaqadaa qabtaan oo aanu cid kale maalinta ay meel tegayaan ku darro laakiin dee way joogaan waayey ninka odayga ee safka hore fadhiya waa salaamantiin aniga waxaa la yidhaahaa maxamed abdaahir hargeysa university baan ka ahay ku-xigeenka dhinaca academic affaireska ku-xigeenka presidentka aada ba u mahadsantihiin aadna waan idinku mahadnaqayaa dhalinyaradan aada isugu yeedheen iyo odaygan aad soo dhex fadhiisteen dhinacan civil servantska iyo dhinacan hawshiinu wasaaraddaadu tahay ilaa iyo xadkee ayaa xidhiidh idiin dhexeeya taasu waa mid ta labaad waa dhab shaqaalaha shaqaalaheenu aada iyo aad bay dhalinyaradu u shaqaalaadahay sida aad sheegtayna sida lagu ay qolada soo saareen ministry of qorshayntu waxaan filayaa waa bit inflate xoogaa waa la yara naaxiyey intaa way ka badantay shaqaala-aantu haddaba waxaan anigu odhan lahaa waxaan oo secondary arday ka soo baxaysa ee jaamacadiyana ka soo baxaysa ee meel la-aan loo hayn ee tahriibkii iyo wax kastaba ku dhimanaya beri ka maalin waxaa dhici doonta inay xafiisyada inoogu soo galaan oo ay dhibaatooyin badan oo inta hadda aan joogin inay la yimaadaan waa suuragal waa dhalinyaro waa mutacalimiin marka si loo eego waa alienated from their own culturekii oo dhan way tageen xoogaa baa la baray wixiina wax ku cuni waayey waxna ku qaban waayey haddaba anigu mid baan odhan lahaa wax ma soo jeedin karaa waxaan soo jeedin lahaa waxaa dhici jirtay wax la yidhaho national service waa shaqadii qarankaad ujeedaa miya shaqadii qaranka number kan badan ay nagu soo baxayaa haddii national service lagu hay-adaha loo kala diri lahaa kuwa badan ayaanay sooba daayeen ay shaqaalaysiin lahaayeen kuwa kalena training bay ku qaadan lahaayeen oo xirfadihii meesha lagu hayabay ayay wax kusii baran lahaayeen theory-gii bay u rogi lahaayeen practica taas haddii la samayn karayo waxaan lahaa lasoo introduce garayo ta kale xoogaa research aan ahayn wasaaraddaada ayaan sameeyey 3 months ayuu igu qaatay waxaan tegey berbera waxaan eegay berbera shaqaalaha lacag ka qaata ee beyrka ah waxay noqdeen eeg hadda waxaa aan la yaabay waxa weeyaan 650 650 ma shaqaalaha dawladdaad ujeedaa mise shaqaalaha waa shaqaalaha may local governmentka beyda oo local governmentka ka shaqeeya 650 out of 650 baa officially u shaqeeyo xafiis fadhiya ama wax soo ururinaya the rest waa bill ay qaataan ta labaad hargeysa waa 687 baa beyda
58 ayaa shaqaale caadi ah oo mushaharka qaata waa shaqaalaha dawladda hoose oo dhan dawladda hoose ee Hargeysa adeegyada ha ka shaqeeyaan meeshay doonaan ha joogaan 8 official u shaqeeya 8 waxa ku jira oo lacagteen iyo wixeen waa ku baxaan batrool iyo spare parts dareewalkii in yar buu qaadanayaa baabuurkiina wuxuu gelinayaa lacagaha intii u ka badan si uu ugu noolaado marka waxaan u shaqeynaaba waa shidaal iyo qof aan inoo shaqeynayo waxyaabo sidaas oo meelan baa meesha ka buuxa haddaba waxaan anigu ku talin lahaa su'aal tu kaloo iga yaabiso aan adiga taada aan waan soo koobayaa Hargeysa مثلا hay'adda shaqaalaha dad baa la yidhi waa aqoon daraa hayse hala tababaro waa la soo celiyey mushaharka kaasoo qaato isagoo training la siinayo qaarna trainingkii ay diideen ay suuqooda joogaan iyo kii wasaaradda joogay waxay isku lacag weeye isku in bay qaataan isn't that unfair yani unfair ahayn wasiiradda ka jawaabi doonta aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa tahay ninka kugu xiga ee safka hore fadhiya magacaygu cabdilkariim cismaan jaamac waxaana ka imi amaan maaragtay hogaamiyaha institute la yidhahdo institute for strategic initiatives waxaan kaloo maxaa la yidhahdaa consultant u ahay dowladda national ICT national policy baan sameynaya marka haddii ilahay raalli ka noqdo arrintan waxaan doonayaa laba arrimood inaan soo raaci midna su-aal maxaa la yidhahdaa wasiiradda midna maaragtay comment horta marka hore aad baan wasiiradda ugu mahad celinayaa fursaddan qaaliga ah ee ay maaragtay kusoo hor fadhiisatay bulshadeedii ay wasiiradda u ahayd waxaanan runtii aan ogahay inay wasiirad aad iyo aad u firfircoon oo maaragtay shaqo aad iyo aad u muhiima qaranka u haysa inay tahay ilham mahad naq badan bay leedahay waxaan kaloo mahad celinaya of course maaragtay televisionkan University TV iyo maaragtay dhalinyaradan kasoo qayb gashay barnaamijkan waxaan ku horeynayaa arrinta commentka ama aan doonaya maaragtay inaan ku daro maaragtay barnaamijka arrinkaas waxa weeyaan arrinkan aad ka dhawaajisana ah in dad ajnabi waddankeena u soo shaqo tagaan oo ay shaqooyinkii maaragtay qofka Somalilanderka u qaban lahaa ay qabtaan anigu sidaan maaragtay fakarkayga waxaan aaminsanahay dad inaynu helno skill oo professionalista oo maaragtay aqoon casri ah sida in waddanka loo soo daayo oo waliba lagu encourage karay inay tahay inay arrin muhiim tahay waa inuu qaran maaragtay runtii kobciisa maxaa la yidhahdaa skillskiisu dee uu ka hooseeyo adduunyada kale ayaynu nahay waynu leenahay dad aqoon leh laakiin as a nation ama qaran ahaan dee aqoonteeni ma gaadhsiisna levelka ay dadka kale gaadhsiinayeen even maaragtay dad Kenya iyo Ethiopia eegto marka dad kale inay noo yimaadaan oo ay waddanka ka shaqeeyaan oo aynu maaragtay skill transfer ama aqoontii ay dadkeena u gudbiyaan anu waxaan u arkaa inay tahay arrin wanaagsan waxa uun loo baahan yahay in halkaa maaragtay strategic ama maaragtay policy xeeladaysan in arrimaha laga yeesho qofka imanaya inuu noqdo horta qofkii ka aan sheegayna ee skillska fiican leh markuu yimaadana somehow in la sameeyo in cidi la shaqayso si ay u dhacdo aqoontii inay noo soo gudubto ma odhan karno qofka maaragtay Yurub ka soo qalin jabiyey ee Europeanka ama qofka Kenyaanka ee hay'ad caalami ah u shaqeeya wuxuu la aqoon noqon karaa markiiba qofka Hargeysa University ka soo baxay runtii of course waynu dadaalaynaa laakiin haddana maaragtay si daacad haddii la maaragtay aynu wax u approach karayno waynu u baahannahay skill transfer badan dadkeena dibadaha ka imanaya Somalilanderska iyo dadka kaleba taasi waa comment su-aashayduna waxa weeye markaad runtii eegtid sidii maaragtay haddeerba aad cabdi salaam u sheegtay 60% ma 65% dadkeen waa young adduunka waxaa lagu xisaabtamay resources ka maaragtay ugu muhiimsanna waa dad 65 boqolkiiba yani waxa weeyaan dee qarankeenuba la boqolkiiba boqol lama shaqayn karo oo dadka dee age baa maaragtay dad gaboobe baa jira markaa dadkii 65 boqolkii dadkii shaqayn lahaaba markaa waa dad yaryar
saa maaragtay intooda badan waxay noqonaysaa markaa dad yaryar bay noqonayaan jaamacado badanna way leenahay sidii wasiiraddu u sheegtay jaamacado aad u fara badan baynu leenahay oo runtii maaragtay dee produce kana soo saaraya dad maaragtay jaamacad ka soo baxay certificatesta an waxaan odhan lahaa halkaa in policy laga sameeyo miyaanay su-aal bay hayde miyaanay wasiir muhiim ahayn inaynu isu miisaano istraatiijiyad ka samaysano inta qof ee jaamacada ka soo baxaysa iyo maaragtay barnaamijyo la abuuro job opportunities in la abuuro waxaad muddaa baryahan dambe job opportunitieska ama fursadaha shaqo ee jiraaba inay yihiin qofku inuu calan yar qaato meelaha la ordo oo siyaasad iska daba cararo ama maaragtay qof dhalinyaro aan waxay siyaasada tahayba garanay nation ka dhanba waxaad moodaa inaynu usoo shaqo tegayno politics taasina sax maaha miyaanay ahayn in istraatiijiyadaynu ka abuurno ama policies governmentu ka sameeyo dadka jaamacadaha gelaya iyo shaqada aynu suurtogelin karno inaynu abuurno waynu abuuri karnaa shaqo aad iyo aad baad umahadsan tahay waan idiin iman doonaa qoladiina xagga dambe fadhida haddii aynu ka horeyno maxamed su-aashuu ku weydiiyey oo malaa dhowr qodob ka koobnayd oo haddii aan ku xusuusiyo uu ku taliyey in la sameeyo shaqadii qaranka wixii la odhan jiray oo kale si tahriibta buu yidhi iyo dhibaatooyinka kale ee la midkaa looga hortago taas haddaad ku bilowdo wasiir horta khudbadii madaxweynaha ee sanadka golaha wasiirada golaha baarlamaanka ku akhriyay way ku jirtay qorshayaasha dawladda bay ka mid tahay in la abuuro la soo celiyo shaqadii qaranka laakiin had iyo jeer yani markaan anigu iminka oo kale maalintan dibadda joogay maanta markaan wasiirka ahay isku fikir may wax badan oo anigu markaan islahaa maxaa waxa loo qaban waayo maxaa ayaa haddana markaad gudaha soo gasho waxa ku xakameynaya resource-ka aad haysatay ya shaqadii qaranku waxay ahayd carruurta waxaa la siin jiray dhalin anigu waan garanaya de macallimiin bay isoo noqdeen shaqadii qaranku de 300 oo shilin bay qaadan jireen maanta ardayga aan halkan jaamacadda noo dhaqno cergaabo u shaqo tag ya de markuu ugu yar yahay $100 dawladda siisa dawladdeena ma hayso lacagtaas mushkiladda ina xakameynaysaa waxa weeyaan horta resource-kii mushaharka aan ku bixin lahayn يعني فكرهان ونسلق قاعدنا لكن we have to ماشي عن مش ده لقى كبي لها إن تقاليل لبحلها لقفك فلانتير معها مش هو قبنا يا وين أدلس يسقي وحين دورينا mainly إنه دتك ورتو واحد وانو كاد دولينا يسبح كلكي ويدتك problem كلا موقدي واحد وين إن دتك يورد مهرجيس يسوي بعدين وقبل ده يورد لقى يوم ميسان كي سوبان لانو دمناك كسرعة بل إن أنا دتك هي من resource كي علينا وفكرها وانو قاعدنا يودو واحد بيكون شرطه وبدي مدحوينا لكن وحنا حكمينا يا واحد ويان يمر إن درسوس كي أما مارت ديال عكتي دقالين لصين لها تان فنتي يعني دولة هو دولة هو صدق هذا ساي وحلا واحد دولة وشقة يا يورد شقة وما هي that's the reality دولة وحويان welfare state وكل جود مياه دول كل جود ما واضح يعني ما هي ضدك شقة كوتش وجود ميهين ضدك أضرب أحلى لكن ضدك وحوية وsource of income بين نقطتين دولة دي الله شقي يا أبى الدولة دي هوسة وحوية الميزان كان دولة هوسة صارت ما هضدك يا وباه نايا هذا يدورنا يا لكن ده ماشي يلا ضدك ده أنت الدولة دي لا تشوف تابو وأنت قولي قريه هذي مشهر الله نقطة يا أنا بفكر كي يعني تلا عبد الكريم أو كلا مكوحة هاتيم كي إن نقل شقينا إن رفهم خصوصا من الشغالة وحيابا نحكمي وحكم النقطة لما ضدك مش قينوا أبورينا مثل كوي شقة هي بين سوق كوسيدينا ويرنت وبروبلم يلا شغالة أنت ودنك كشرتي وحكينيسا مركز الدولة دي أما الدولة دي هوسة ما شقة دي لوجا بهنا ما جودن كريان ويضدك وبهنا يعني كل جود موجود شوجا إمكانه مسارد شقانو بهنا لكن ما قانون كريو ضدك أنو بهنا ما هيو دي فرصة أما الدولة دي قالوا ما هي سو شقالة هذا يقول سيس maxaa haddaa keenay tii qiimaynta shaqaalaha dawladda lagu sameynayay haddiiba aan qofkii hadduu qiimo hoos uga dhacaan laba eriyi karin it was baanaan horta meesha sharcina wuu yaalaa sharci baa jira inaan qofkii la eri karin qofkii shaqaale dawladda weeye xuquuq baa ilaalinay laakiin anagu markii waxaanu ka duulaynay UNDP inay dee waxaan reformkan markaanu samayno
inay dee dhibaatooyinka meesha kasoo baxa dee wax nagala qaadanayso baanu dee markii horta dee talada ahay laakiin waxa soo baxday dee qiimayntii waanu samaynay dadkii dad da' baanu soo saaray imtixaanaanu dadkii gelinay haddana qofkii waa kan qofaanu meelaan u diro ina pension uma kuma gelin karayno oo system pension oo abuuran weli ma jiro ama dadkii aad marka waxay noqotay inuu u noqdo qofkii inuu meeshiis ka joogo shaqada aanu ku qaban laakiin haddana dawladda u shaqeeyo waa yahay cabdikariin su-aasha ku weydiiyey cabdikariin horta waa loo baahan yahay in la sameeyo waa waxyaabahaanu u baahan nahay dee in wax laga qabto runtii su-aashaadaasu dawladdu iminka annagu ka wasaaradahaan hadda waxaanu ka fikeraynaa inaanu iminka samayno center oo aanan weli haddana resourcekii ama dhaqaalihii oonu doonayna in bal dhalinyartii ay meel baltray waxaan ka maqan ama talooyinkan ka maqan ay ka heli karaan inaan u abuurno oon job center in wasaaraddu oo waxaa jira qaybtii aanu ay laborka deganaan jiray oo wasaaradda caafimaadka ka mid ah inaanu imika u bedelayno job center daatadiina lagu ururiyo in weliba trainada qaarkoodna aanu ku bixino laakiin waa wax kasta oo aanu isleenahay qabta haddana problemka waxa weeye waa resource laakiin wasiir haddii su-aal kale aan ku weydiiyo ama sax ha noqdo ama qalad ha noqdo laakiin dareen baa jira dhalinyarada ku jira oo ah in dawladdan xisbiga kulmiya markii ololaha doorashada lagu jiray aad ballanqaadyo fara badan u sameeyeen dhalinyarada in xooggii codadkii ay heleen uu dhalinyarada ka yimi dhalinyaradiina abaalkii aanay helin dareenkaasi ama sax ha noqdo ama qalad ha noqdee adiga sida kuugu muuqda anigu waxaan u arkaa dee dhalinyartu garbay joogtaa waayo docodka wayna siiyeen waxay doonayeenna isbedel buu ahaa noloshooda ku yimaada noloshoodana dee waxay isbedel ku imanaya inay dee ama shaqo helaan ama dhaqaale helaan marka runtii dee waan u garaabayaa oo wixii ayaan codka ku helay bay ka mid tahay haddana waxaan leeyahay maanaan dee sakranayno dhalinyartii ma sakranayne dee annagana dee gacmahayaga way xidhan yihiin oo wixii aan dee ku ballan qaadnay wax badan ayaan nooga suurtagelaynin oo resourceka dee markaa jira ama available uu na xakameynaya laakiin caruurtu ama dhalinyartu they have every right inay isweydiiyaan waayo waxay u codeeyeen wuxuu ahaa isbedelkuna ma ahayn inay dawladdii bedeshay isbedel noloshooda ku yimaaday doonayeen oo waan u garaabayaa waana xaqna way u leeyihiin inay questionkaa isweydiiyaan waayahay waxaan u gudbayaa ninka safka ugu horreeya fadhiya marka hore waxaan umahadnaqayaa tvga caalamiga universal oo fursaddan runtii wasiirka ama moogtahay madaxda dawladdu inay dadka kula hadlaan su-aal la weydiiyo ay furso geliyey iyo wasiirka oo waqtigay u soo hortay oo runtii soo hor fadhiistay dadka meel kastaba caalamka universal ka daawanaya intaa kasta kow magacayga waxa la dhaha maxamuud cabdi sheekh axmed waxaan ahay shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha caalamiga waddanka jooga isla markaana waxaan bara sare ka ahay ama senior lecturer jaamacadda armas iyo macadka xalinta khilaafaadka iyo nabadda ee jaamacadda hargeysa waxaan u malaynayaa su-aalo maaha commenty bay u badan yihiin runtii horta marka hore waxaa muhiima marka aad leedahay shaqa la-aan baa waddanka ka jirta ama intaasay maraysaa waxaa ugu muhiimsan malaha inaan horta somalilan ay hesho iyadoo dawladdu ama wasaaraddu horseed ka ah in la helo tirkoob saxa oo 60% baa bilaa shaqaa 70% marka la helo saxda warka la helo ayaa loo oran karaa maxaan ka qabanaa horta lama garanaya aan leeyahay ogaantay talabaad ee ah dadkan ka soo baxaya jaamacadaha faraha badan la ka soo baxaya haddana shaqo la-aan beelaya waxay u baahan yihiin oo ay wasaaraduna iyo dawladdu oo iskaashanaysa dhammaan cid ay doonto ha kaashatee ay horseed ka noqoto ay tahay iyagoo jaamacadahana kala shaqaynaya runtii ee ganacsi lagu dhiganayo maogtahay shirkado waaweyn oo lacag le iyo lagu dhiganayo qodobka anoo soo koobaya ta aan u gudba moogtahay shaqaalaha moogtahay hay-adaha ee caalamiga imanaya walaalkiina ka dhawaajiyay in loo baahan yahay yes waa loo baahan yahay waa run oo in dad xirfad leh waddanka la helo waa loo baahan laakiin waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay dawladdu inay coordination la timaado inay siyaasad la timaado waxaan kaloo moogtahay muhiima oo ogaantay oo maadaama aan ku dhex jiro hay-adaha iyo aan ku dhex jiro ogaantay waxa weeyaan wasaaradaha iyo dawladdu lafteeda in wada shaqayn isku mid ay la yeeshaan isku mid waxaan ogahay wasaaradda moogtahay shaqada iyo wasaaradda qorshayntu ayaa waxay ka soo saareen communique ama waxay isku raaceen oo doonayaan inay wax kaga qabtaan hay-ad dadka imanaya
isla markiiba iyadoon shaqadii dhacin galin oo ahayd runtii wax aad iyo aad u fiicnaa markaan helay aan akhriyey oo ahaa in dadka la jeegareeyo in qofkii aan shaqadiisa halkan laga helay la jeegareeyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa markiiba agaasimihii hore economical moogtahay shalay habeen hore iscaslimaa kii kasii horreeyey waxaan xasuustaa inuu communique hayado dhan intuu soo diray uu yidhi waxaas waxba kama jiraan marka dhexdoodii wasaaradaha dhexdooda waxaan leh dowladdu inay yeelato siyaasad midaysan aad iyo aad baa dhammaantiin ma u mahadsantihiin barnaamijkiina intaasi ayuu ku dhan yahay waa barnaamijkii milicsiga siyaasiga oo idinka imanayay stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa toddobaadkanna waxaa marti noogu ahayd wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee somalilan ilhaan maxamed jaamac wasiir aad iyo aad baad mahadsantahay